waxaa maanta ku eg muddadii 14 cisho ahayd ee loo qorsheeyey in lagu qabto doorashada 16 kursi ee taalla deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubbaland. Guddiga maamulka doorashada Jubbaland ee SID ayaa 15 bishan shaaciyey liiska 16 kursi iyagoo sheegay in lagu qaban doono 2 toddobaad gudahood. Guddigu xilligaas ma sheegin halka lagu qaban doono doorashada maadaama aan weli xal laga gaarin doodii ka taagneed magaaladii loo asteeyay ee Garbaharre xarunta gobolka Gado. kulamo badan oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku soo dhamaaday isfaham waa iyo in aan la isku raacin halkii lagu qaban lahaa doorashada kuraasta taalla Gado. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland xubno ka tirsan golayaasha maamul goboleedka Jubbaland iyo duubabka dhaqanka ee ka soo jeeda Gado ayaa ku kala qaybsamay in doorashada lagu qabto Garbaharre iyo in laga wareejiyo oo la geeyo Ceelwaq ama magaalo kale. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo siyaasiyiinta taabacsan waxay qabaan in Garbaharre ay joogaan ciidamadii uu geeyay madaxweyne Farmaajo iyo maamulkiisa in aysan suurtageli karin in Jubbaland ay doorasho ku qabato maadaama aysan gacanta ku haynin maamul u joogin gudahana aysan tagi karin guddigii ay Jubbaland magacaawday. Garabka kale ayaa ku doodaya in aan laga gudbi karin heshiiskii 17 Sebtembar ee doorashada Soomaaliya isla markaana aysan jirin qof ku dhici kara in magaalada Garbaharre uu ka wareejiyo doorashada sida aan ka soo xignay ila wareejiye ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. Maamulka gobolka Gado ee uu dhisay madaxweyne Farmaajo ayaa diiday in doorashada lagu qabto meel aan ahayn magaalada Garbaharre. sidoo kale waxay diideen in magaaladaas ay yimaadaan guddiga qiimeynta ee uu magacaabay Ra'iisul Wasaare Injineer Maxamed Xuseen Roble. wakiilada beesha caalamka oo qayb ka ahaa dadaalada lagu dhameynayo dooda ka taagan qabashada 16 kursi ee gobolka Gado ayaa dhankooda weli aan ku guuleysanin in ay xal u helaan doodaasi. maalmo ka hor xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa soo jeediyay in kuraasta taalla Garbaharre lagu qabto magaaladaas laakiin ka hor dhinacyada isku haya loo qaybiyo wakiilada ka imaan doona gobolka Gado. soo jeedintu waxaa qayb ka ahayd in Villa Soomaaliya la siiyo 8 kursi Jubbaland la siiyo 8 kale. dadaalkaasi oo ahaa kii ugu dambeeyay uguna rajada fiicnaa ayaa sidoo kale ilaa hadda dhaqan gelin waxaana la sheegay in dhinacyadu aysan soo jeedintaasi qaadanin. sidoo kale qorshihii maamulka Jubbaland uu ku damacsanaa inuu doorashada ku geeyo magaalada Ceelwaq ee gobolka Gado ayaa iyagana guul dareystay. guud ahaan doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo qorsheeyay in lagu dhameeyo ilaa 15 bisha Abriil ee sanadkan waxaana ka dhiman 17 maalmood oo kaliya. Jubbaland waxaa ku dhiman 16 kursi halka Hirshabelle ay ku dhiman tahay 10 kursi. wararkii ugu dambeeyay ee aan helnay waxay xaqiijinayaan inaysan muuqanin rajo dhow oo maalmaha soo aadan lagu qaban doono doorashada ku harsan maamulka Jubbaland.